السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دابد يال وحا إلى جوغا مختار قدودو كاميناك وقصر يا جيسك أفريكا عبد الساق لانديري أنا جوجو عبد الساق لانديري يوتيوبر سوماليات أنا حسبي هاي عبد جوجو ذعبكي حسن تور توب هاي مع دتك حافظين محلي همبليو lagu soo yaaco xasan top ما يسكح بدن وديباتي هلا aad iyo aad lagu soo yaaco dudul meediyo الله كان waxaa daawada la joojinay barnaamijkii guurdoon barnaamij maanta inta halka gudgalin ustaadku waxa maanta oo isheeg oo nasiib u yeeshtay barnaamijkan oo isheeg oo guurdoon bedela oo la joojiyay ma sha Allah sabab ka imaaday xagga oo isheeg asxaabta daawadayaasha barnaamijkii guurdoon inuu loo bedelay barnaamijka maxaa rajada qoyska lamaanayaasha kala tagay dadka isjecel dadka isasa doondoonaya raja waa isa doondoonaya saxra dadkii oo waxa jira dad oo kala tagay oo si sabab ka sax kala tagaan oo macnaha midna bil laba bil saddex bil ka soo wareegtay oo macnaha saddex bil aan dhahayn laba bil oo gudahooda oo macnaha khilaaf ay ka jiro in oo maartay la xaliyo ayagana sida reerkaas oo dib isku keeni lahaa oo loo dhisi lahaa maartay in laga shaqeeyo social media qaabkii oo isheeg guurdoon waxay u bedeshay inay ka qayb qaadato rajada qoyska qoys badan ay jiro oo maartay caruur dhaleen oo caruur haystaan aabihii naako guursanaa kadib hooyadii ninka la aadaysa cunugii iyo hooyadiis caruurta ayagana darbijiif waxay naqahayaan iyo isheeg meel kale aadayaan sistaas u dhicin waxa ku dadaalina insha Allah ta'ala in dadkii oo kala tagayn isku soo celino oo maaragtay oo dad badan jiro dhibaataas qoyska lamaanayaal kala tagaa jiro salahan xal xaasa qabta xaaska da gurtay maseere islaanta maseere caruurta ka tagay caruurta marka caruurta darbijiifeen oo qaan way baxdimayaan fikradu waxay ka imaatay maanta marka aragnan wiil yar oo maaragtay oo meelaha oo darbijiifka ka soo wadnay oo dhahay ani markan hooyo aaba isqabeen waxa ku nool nolol fiican oo hooyo aaba kadib hooyadeedii waxa waa la furay waxay u baxday isheeg hirkiis dhinacaas si aaday aabihiina oo naakalo qaatay sax iidaal iigeeda iidaha oo say macna dibi jirtay anna waadkaysa waa kadib waxa soo baxay buundooyinka meeshaan isheeg oo kulisa soo aaday hadda meesha ku nool sababta marka qoyskii burburay oo kala tagay ayaa kaliftay in caruurtaas ay doorka galaan boqolkiiba 90 caruuraha darbijiifka waxa mid ah oo aabbahood inta hooyada inteen oo daryeesho weysay saasi ku aadaan marka anaga ka door ahaan in oo maartay in kasto oo guuldoon xoog dalilo ka imaadeen in loo weexiyo dhinaca ay sheeg oo maartay qoyska lagu dhiso qoyska Soomaaliyeed sharaf ay leeyihiin waa rajada qoyska la soo cesho oo maar dadkii is kala tageen inay ayaga dib oo gurigaas loo dhiso waxa la yaab dalad gabar ay sheeg khadka ugu soo wacday oo arrimaha guuldoonka waxay dhahday caruur ma haysto waxay dhahday single mother single mother hada wada naagta xasan single mother mali qabo mo macnaha ninkii abiilo tusalahan caruurtii oo dhashay wala kala tagay caruurtu ku biila waxa isticmaal marka single mother in boqolkiiba 90 dibad caruurtii guriga degan yihiin dibada ku arintaas wadamo ay u badan yihiin marka Soomaaliya waxa lagu dhahayaa marka gabadha Soomaaliya joogta marka sax single mother Soomaaliya maxaa dhahaa hooyo oo isheeg oo iskaabul maali hooyo iskaabul caruurteeda la joogta saas ma mal safeena macna ere ma lahaay ma wallahi single mother digmo Soomaaliyan taas dadka oo isag Soomaaliya Abdi Sheekh Landeere maxaa leedahay adiga maxaa ku sifeelay barnaamijkan la bedelay ma sha Allah barnaamij dadkan isku keenay isfuray oo barnaamijkii guurdoonka ahaa gabadhii guuraan rabaa wixii dhilay ayaa laga bedelay barnaamijka waxa loo bedelay rajada qoyska macnaha waxa dadka guurdoonka waxa ka sii weynba dadka kala tagay in la soo keeno aadana wanaag iyo qurux aan ka shaqeynayno sax waa shaqo fiican horta haysiin ilaahay ka mid cila dadka ilmaha dadka xaaska iyo odayga day kala tagaan kale waxa dhahay ilmaha waxay naqayeen dirbijiifyal kale waxa fiican in aan tan soo qabto meelaha dirbijiifka kale lagu soo qabto meel uu lagu xanaaneeyo hooyada dhashay inba odayga dhashay kale loo raadiyo inba loo geeyo kale ya habartan iyo odayga kala tagayna alfa jiro lu kala tagi karo hadii garta la geli karo la dhamay karo in la dhameeyo odayga iyo ilmaha soo celiyay macna hooyada oo qoyska oo خلاف وين كتاجي
meelaha qaarkood markaa tagto oo waxaa arkaysaa dadkan oo istaagan isduljiidaayo maxaa jira shan cunuga u haayaan dhibkaas uga haayaan dooda socod qoyska waxyaalaha ugu muhiim oo ugu dhib badan mugta oo qoys oo mashaakil oo mar walba dhibaato ka taagan idoo lisqabana oo weli la kala tegin la kala tegin waa badin hawlo badan waay waa maseer iyo wax dhilaha maxaa lagu xalin karaa isleedahay muqtar guduud oo kaamirmaankeena midaas waxaa lagu xalin karaa jirka qofka in oo maaragtay inta badan oo dhiirigelin la siiyo tusaalooyin badan tusaalo kale qoftan waxay ku qanacsanayn nin hal naag in la qaato waxaa loo sheegaa in nin naag ay jirto oo ayada oo kale ah oo saddex naag lala qabo sax in loo sheego oo loo sheego ana qofka nafta waxa adiga taagan tahay wax wixii oo ii sheeg hoos fiidamo hadii hal aad tahay oo mid kale lagu guursado naaga jirto oo laba kale oo dheeri la qabo oo joogto oo gurigeeda ay joogto hadii hal lagu qabo inaad dul qaadato oo gurigeeda halka ilaalisto especially awlaadaada inaad u fikirto hadii aad ka tagto awlaadii waa baxayaan hooyadiina marka nin kale aroosa ilaa qafl yar waa mugta nin kale aroosa ninkiina uma joogayo naakala aroosa hadii uu dadaal xoogeyna hooyiisa u geena aroorta hadii hooyiisa geyn daryeelkii hooyo aab meel heli karo sax waa mar waliba waxaa muhiim ah hooyadii aabaha ayaga wax awlaadooda ka naxo suunaha isku qabo hadii ilmihi ka tagaan hooyo ka wareegto aabana ka wareegan ilmo wax laabahay mamada waxaa dhacayso aabihii oo kale naagtii ayadoo nin kale guursanayo gabadhii marka nin kale guursaysa adeerka asoo u dadaalay hataa oo caruurta tumin oo dhibaato u geysanin hooyadii waxay isleedahay kalsooni ku qabto sax waa hadii hataa oo canaanto waxay isleedahay ninkan muxuu ugu celinaa oo sheeg oo wuxuu leeyahay adeer iyo sababtaas keenayso asigina waxay ka tahay daacad ka tahay sax waa taasay dhacdo mar badan waa dad badan sheegay waan aragnay marka aad ugu faraxsanahay inaan barnaamijkan gurdoon barnaamijka lahaay inaan u bedelno barnaamijka asxaabta oo dad media barnaamijkaas wixii ay ka dhigi karaan in comment noogu soo rajada qoyska please comment-iga noogu soo qora qoysaska la isku keena labadii isku isku keena si caruurtooda darbijiif aysan ugu noqon sax waa sidoo caruurtii way dayacmayaan intay imise hooyooyina ayaa nimankooda kala tagay okay in la isku soo celiyo sax haddii hooyada ay guursatay dhib male haddaysan guursan hooyadii in la isku soo celiyo in la isku keeno marka niyo dhibka waxaa ka weyn qofka haddii labana guursado oo kale naagtan oo qabo tusaale oo kale naag kale guursaday haddii uu awoodo dhibaato ma ka taagan midaa ka dhaha qoftan waa la guursan Soomaan shay alfaas u geeyay qof walba waxa fiican in ilaahay aaminto saxiix xaaskan uu ilaahay ku xirnaado ninkan sidoo kale waa ka qarsay Soomaan hadduu ka qarsay shalaad ma guriga soo riso man guriga iska dhaqato si xalaal guriga ala maamada ee qofta hooyadii guriga u weynado adiga in aad sabarto guriga dhaqato asigan afrooto ilaahay u baniso man wax la qarqariyo laamiga imaarto mafan wax la qariyo ma fiicno naagna sidii baan waxa waaye caruur cunuga aad dhashay duuxi naqo kale dhinaca af u gelisaa sabta asoo haduu uu yahay soo waa ku qosla Soomaan naagna sidoo kale safar in la sabiyo la dhiibo in la sabiyo la dhiibo niida loo dhiso ma ku waxa jiro laakiin haddii gafuuri aniga oo naati ku xaas ku daysado wax baa halaaba laba dhagax hadii la isku dhufto waa midaa jiro Soomaan saasoo kale waa naagu sidii wala sababa ilmo nin walba xaas qabo iska sababa xaas sababa eedana ilaahay ma ku xirnaato ninkeeda xaajigeeda buuqa iyo dhibaatada iyo ka yareyso hooyadii guriga naqato sax oo ayda oo macnaheedu ilaa hada ma sidii comment-iidina ayaa u baahanahay inaan noogu soo qortaan barnaamijkan iyo fikirkiina noo soo qora iyo dadka aan wareysida ka qaadeeno maadaama rajada qoyska aan dhaanay kaamiradu waxaan mid kale xaaga faa'iideysanaa dad badan oo kala tagaa jiro oo midlan bil hor ama oo maartay 2 bil 3 bil inta la gaarin oo ay kala tagaa jiro dadkaas oo kale daawana waxaan ku dhiirgelin inay nala soo xiriiraan oo maartay dad si aan u dhaxgalno aan u xalino xaajiga wacno oo maartay kadibna qoyskii isku keeno sababta keentay oo maartay asaasna rajayna kind of how hormar kaamiradi liba shoor laatan iyo kulan dambe sidaas iyo